السلام عليكم kusoo dhawaada ardaaga filimada maanta waxaynu soo koobaynaa film horror action ah oo lagu magacaabo The Terminator kaas oo soo baxay sanadkii 1984 filimku waxa uu ku bilaabanayaa 1984 magaalada Los Angeles mashiin dilaa ah oo loo yaqaan Terminator ayaa ka imanaya sanadka 2029 wuxuuna xadayaa dhar iyo qoriyo Kyle Reese oo ah askari bin aadam ah oo dib looga soo diray isla sanadkaas ayaa imanaya wax yar kadib waxa uu isna xadayaa dhar iyo hub wuxuuna ka baxsanayaa booliska Terminatorka waxa uu bilaabayaa inuu si nidaamsan u dilo dumarka magacoodu yahay Sarah Connor oo ciwaanadooda uu ka helay book telephone waxa uu raacayaa Sarah Connor tii hadafkiisu ahaa goob lagu caweeyo balse Kyle ayaa ka badbaadinaya labadooda ayaa baabuur xadaya kana baxsanaya Terminatorka waxa caydsanaya gawaari boolis ah yana waxay isku qarinayaan meel baabuurta la dhigto Kyle ayaa u sharaxay Sarah in shabakad AI oo difaaca sirdoonka ah loona yaqaan Skynet ay noqon doonto mustaqbalka mid caqli gaar ah leh ayna bilaabi doonto dagaal lagu dhamaado oo nuclear ah Sarah wiilkeeda mustaqbalka John ayaa ururin doona kuwa ka badbaadaya sameynayana iska caabinta Skynet iyo ciidankeeda mashiinada marka iska caabintu ay qarka u saaran tahay ka guuleysiga mashiinada Skynet ayaa dib waqtiga ugu soo dirtay Terminator si uu dilo Sarah ka hor inta aanu John dhalan si looga hortago samaysanka iska caabinta nooca Terminator Cyberdyne ee nidaamyada 101 oo ah mashiin dilaa ah gudaha ka ah bir skeleton ah lakabka dibaddana uga eeg bini aadam ayaa ay soo diraysaa Kyle iyo Sarah booliska ayaa qabanaya waxaana la geenayaa saldhigga booliska kadib markii uu kulan la yeeshay khabiir ku takhasusay cilmi nafsiga dambiilaha Dr. Silberman ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay in Kyle uu yahay mid jahwareersan oo dhalanteed ismoodsiinaya Terminatorku inta uu jirkiisa soo hagaajiyo ayuu weerar ku soo qaadayaa saldhigga booliska oo ku dilaya 17 askari oo boolis ah isagoo markaas isku dayay inuu helo Sarah Kyle iyo Sarah ayaa ku baxsanaya baabuur kale waxayna gabaad ka dhiganayaan motel halkaas oo ay ku ururinayaan bambooyinka tuubooyinka sidoo kale waxa ay qorsheynayaan tallaabadooda xigta Kyle waxa uu qirtay inuu jeclaaday Sarah tan iyo markii John siiyay sawir ay iyadu leedahay Terminatorka ayaa dilaya Sarah hooyadeed isla markaana iska dhigay iyada marka Sarah ay soo wacdo iyadoo aan ka warqabin awoodda Terminatorku isugu ekaysiin karo codadka dadka kale markii ay xaqiiqsadeen in Terminatorku uu ogaaday halka ay joogaan waxay ku baxsanayaan gaari xamuul ah halka uu Terminator ku eriyanayo mooto is-eriyashada dhexdeeda Kyle ayaa ku dhaawacmay rasaas markaas oo bombooyin ku tuurayay Terminatorka iyadoo caraysan Sarah ayaa Terminatorka ka tuuraysa mootada balse waxay luminaysaa xakamaynta baabuurka kaas oo la dhacaya Terminatorka ayaa dhacaya booyad shidaal ah iskuna dayay inuu jirsiyo Sarah laakiin Kyle ayaa bombo ku ridaya gaariga taas oo keentay in qarax weyn dhaco uuna ku gubta lakabka sare ee Terminatorka waxay u baxsanayaan dhanka warshad isaguna waa uu ka daba tagaya Kyle ayaa ka shaqaysiinaya makiinado si uu u jaawareeriyo Terminatorka bamkiisii ugu dambeeyay ayuu gelinayaa caloosha Terminatorka tani waxay keenaysaa inuu qarxo Terminatorku dhaawacna soo gaadha Sarah halka Kyle uu ku dhimanayo Terminatorka ayaa dib isu daaraya oo lugta qabanaya Sarah laakiin inta ay iska furfurto ay qalab hydraulic ah oo ka sarreeyay ku soo daynaysa sidaasna ku burburinaysa Terminatorka bila kadib Sarah oo uur leh ayaa dhex maraysa Mexico iyada oo duubaysa cajalada maqal ah si ay u gudbiso wiilkeeda aan wali dhalan ee John waxay isku qabanaysaa in ay John u sheegto in Kyle uu yahay aabihiis filimku waxa uu ku dhamaanayaa marka ay timaado kaalin shidaal ayaa wiil yar isla markiiba sawir ka qaadaya iyaduna waa ay ka iibsanaysaa waana isla sawirka mustaqbalka uu John siin doono aabihiis Kyle filimkan intaas ayuu ku dhamaaday fadlan haddii aad ka heshay ha ilmaamin inaad nagu caawisid like iyo share sidoo kalena aad nagu soo biirtid oo ka mid noqotid asxaabteeda adoo subscribe taabanaya daarayana gambaleelka digniinta waana muuqaalka kan xiga fi amaanillah